haddii aan inta uga gudubno abwaan nuuraddiin iyo weliba gabagii uu ku soo dhaweynayay sanadka cusub ee 2014 haatan aan ku soo rogaal caliyo fanaanka maxamed galleer ee agteeda fadhiya fanaan sanad wanaagsan waa sax waxaan ku weydiinayaa maxaa kuula yaabka badnaa sanadkii degay sanadkii 2013 ee aad aragtay wallahi waxaan la yaabaa ma aragbo sanadkii bilowday dhamaaday waxaan la yaabaa ma aragbo maxaad ugu tala gashay soo dhaweynta sanadka cusub ee 2014 waxa hees badan ayaan ku tala galay laakiin hadda macnaheedu waxaan qaadayaa hees uu leeyahay abwaankayga qaaliga ah bil kurfe yaa heesta ereyadeeda iska leh abwaan bil kurfe oo garabkayga fadhiyo laxankana waxaa iska leh ustaadkayga cali shaacir music abu kuryare noogu dhufo bil ereyo kamid ah heesta wanaag baa baraaraha lagu kala baxaayo boqor baa ku dhalayo sama kugu barbaarshe wanaag baa baraaraha lagu kala baxaayo boqor baa ku dhalayo sama kugu barbaarshe baraaraha lagu kala baxaayo boqor baa ku dhalayo sama kugu barbaarshe anigoo bilaashiyo been kugu ammaanay anigoo bilaashiyo been kugu ammaanay martii aad istaagtaba burji baad ku leedahay martii aad istaagtaba burji baad ku leedahay anigoo bilaashiyo been kugu ammaanay anigoo bilaashiyo been kugu ammaanay martii aad istaagtaba burji baad ku leedahay martii aad istaagtaba burji baad ku leedahay dilictii u dhalatay waliga baraariyo waayoy baraariyo barya sama ku noolo dilictii u dhalatay waliga baraariyo waayoy baraariyo barya sama ku noolo jacaylka dilan kugu aroose beertii xuriyadahay mali loo balamaye barashada jacaylka dilan kugu aroose beertii xuriyadahay mali loo balamaye barya raadinaya midaan baafinayo barya raadinaya beska
noloshuwaadi Beska noloshuwaadi Beska noloshuwaadi Ay Beska noloshuwaadi Midaan baafinayo Marya raadinaya Midaan baafinayo Marya raadinaya Beska noloshuwaadi Beska noloshuwaadi Beska noloshuwaadi Ay Beska noloshuwaadi Milati udhalatay waliga barariyo Bayo ibarariyo Barya sama kunulo Milati udhalatay waliga barariyo Bayo ibarariyo Barya sama kunulo Milati udhalatay waliga barariyo Bayo ibarariyo Abitama kunulo daawadayaal weli waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkan ugu dabaaldegaynay sanadka cusub ee 2014 welina waxaanu bartamaha uga jirnaa fanaaniinta igu martida barnaamijka ee kooxda Hilaa haatana waxaan ku soo rogaal celinayaa Iqra Iqra waxaan ku leeyahay waqtiyada nasashada ee guriga aad joogto amaba meel gooni aad joogto heesta jeceshay inaad dhageysato amaba fanaankii aad jeceshay inta dhageysato inaad heesiisa dhageysato fanaan waxaan jeclaa inaan heesaheeda dhageysto Maryan Mursal heesaheeda aad iyo aad aan u jeclahay ma jirta hees gooni iyada aad ka xiisayso oo yaani mar walba aad jeceshay inaad ku soo ceeshato ها waan jeclahay laakiin heesto markaan isla joogna Kenya ay dhahayso aad iyo aad aan u jeclahay waan gartay maxaad hadda noo haysaa yaani aad ugu talagashay sanadka cusub heesaan ugu talagalay wariyihii la dilay iyo wariye kastaba oo gardara lagu dilay oo maskiin waxba aan galabsanin laxanka waxa iska leh al-ustaad Ali Shaacir muusiga Xasan Ujeeri Cajabi anigoo Iqrana oo ku luuqeynaya
haddaan intaa uga gudubna heesta ay ku luuqeynaysay iqrayaray haatanna waxaan kusoo guda noqonayaa xabiib waxaan weydiinayaa haddii lagu magacaabo wasiirka wasaaradda tacliinta iyo hidaha dhaqanka Soomaaliya maxaad ka bedeli lahayd fanka Soomaaliya maxaad ku soo dari lahayd fanka Soomaaliya su'aal aad culus fere isku dayna ka jawaabto waxaan horta fanka wax badan ka bedeli lahaa haddii wasiirkaas aan ifan haddaan noqon lahayaa maxaad ka bedeli lahayd maxaa ka mid ah horta waxaan ka bedeli lahaa wax badan baan ka bedeli lahaa laakiin xogaa baan kuu sheegayaa haye waxaan ka bedeli lahaa horta marka hore macnaha maartay qoladan oo maartay wax iska soo qorto maartay fankan macnaha sharciga kala dambeyn baan samayn lahaa macnaha ma garad ninba MKS ku dhibay wuxuu ku dhibay laxanka xasan samatar ku dhibay hees dhan buu ku qaranayaa hore u jirtay waxaad ku xukumi lahayd dadkaas kaas waan ganaaxi lahaa horta iska fariisan dheelaa dhowr sano fariisinaa kode macnaha qas badan baa jira waxaas dhan waan xalin lahaa haddaan gacanta ku dhigi lahaa maxaad ku soo kordhin lahayd waxaan ku soo kordhin lahaa waxaan dhihi lahaa macnaha abwaaninta macnaha iyaga gaar baan macnaha dhihi lahaa macnaha wixiina maartay ninkii maartay erayadiisii macnaha qof kasta waan qiimeyn lahaa qof kasta wixii baan ku qiimeyn lahaa waan gartay bal maxaad dadweynahan ku daawanaya iyo daawadayaashaba aad ugu celinaysaa hees maxaad u haysaa waxaan u hayaa hees la yiraahdo waxaa la yiraahdaa ubax baa la yiraahdaa waa happy birthday to you weli horta ma lidin qaad horta ya هذا دلشة ويا موقتها مركز قف كل شيء مرك بعد قطورة عادي وان قرتيا إريد إسكال يلحن كي موسيقى بس كوكاي راعي لحن كوحاء إسكال أستاذ علي شاعر بس كلام معلم كي جوان آدي بنو سلامة يا موسيقى وحاء ساري حسن عشيري عتبي بساري إريد وحاء سمي أبوان كي نقالي محمد غلفة آدي بنو سلامة يا والله قطورة استوى وبحا سوغاي سعبدها أورسدي ربي وسي لكن دائما وسي به هلكاس وبحا سوغاي سعبدها أورسدي haddii aan inta uga gudubno heestu ku luqeynaya xabiib haddaan soo qabto Yurubello waxaan ku weydiinayaa heesaaga heestii aad jeceshahay inaad dhageysato oo aad ku celcelishato aad yacni uga istiraxdo markaad maqlayso heesta aan anigu qaaday ugu jecelahay waxa weeyaan waxa la dhahaa urkutaalo waxa sameeyay Cabdiqaadir Filfil laxankana isaga saaray
jireeno ima wanaajine aadan weli ku sugayaa daawadeeluli waxaan ku sii saqaynaa guntii gabagabadii barnaamijkii aan ku soo dhaweynaynay sanadka cusub ee 2014 isla markaasna aan ku soo goojinaynay sanadkii tagay ee 2013 haatan haddii aan soo qabto fanaanka liibaan jigjiga dabcan markaan liibaan jigjiga yiraahdo waxaan moodaa in dadku ay jeclaysanayaan liibaan waxaan ku weydiinayaa waqtiyada nasashada ee guriga joogto maxaa jeceshahay daawato ama baad qabato waxaan jecelahay inaan daawado filimada hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waan gartay maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad ku soo dhaweynaysaa sanadka cusub ee 2014 waxaan qaadayaa hees uu sameeyay Maxamed Cilmi Dhicisow oo la yiraahdo Yabaal laxanka waxa saaray Saciid Nuur Guure Jinishumi
muusikana waxaa tumay Axmed Wali Ibrahim Furunle waxaan sugnaaba weeste bal nagu dhuf anu yaradiyo aqoon yaba iyo gorwarkii adaayo ashada kalgacal jirkayga ku yaaci ano yaradiyo aqoon yaqiin iyo gurwarkii adaayo ashada kalgacal jirkayga ku yaaci ano yaradiyo aqoon yaqiin iyo gurwarkii adaayo ashada kalgacal jirkayga ku yaaci sidii yicib meel ka baxay adaa igu yaallao jirkayga dhex yuuraro xubnuhu ku yeedhaya meel ka baxay adaa igu yaallao jirkayga dhex yuuraro xubnuhu ku yeedhaya yagleelay guri gobe yabaaliyo meel cidlaa yabaaliyo meel cidlaa yamaamulo hayga tegay yabaaliyo meel cidlaa yamaamulo hayga tegay yagleelay guri gobe yabaaliyo meel cidlaa yabaaliyo meel cidlaa yamaamulo hayga tegay yabaaliyo meel cidlaa yamaamulo hayga tegay adduunyadu waa yeelmiyo yaraysiga nolol jirtee ismiyo yoyonin arab yariya iga dhawro yormada adduunyadu waa yeelmiyo yaraysiga nolol jirtee yoyonin arab yariya iga dhawro yormada laban kala yoocino yaqiinsada meel qurxoon yolkeenuna yahay cishqiga allownaga yeeldhamaa laban kala yoocino yaqiinsada meel qurxoon yolkeenuna yahay cishqiga allownaga yeeldhamaa yagleelay guri gobe yabaaliyo meel cidlaa yabaaliyo meel cidlaa
hayga tagi eglelaye guri gobe yabaaliyo meel cidlaa yabaaliyo meel cidlaa yamaamulo hayga tagi yabaaliyo meel cidlaa yamaamulo hayga tagi eglelaye guri gobe yabaaliyo meel cidlaa yabaaliyo meel cidlaa yamaamulo hayga tagi yabaaliyo meel cidlaa yamaamulo hayga tagi haddii aan mar kale ku nasanno abwaanada barnaamijka martida igu ah waa abwaan maxamed cilmi dhicisow abwaan sanad wanaagsan baan ku leeyahay wanaagsanoo wacan baan ku leeyahay adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba maxaad ugu talagashay inaad ku soo dhaweyso sanadka cusub ee 2014ka sanadda cusub marka horeeta waxaan salaamayaa wariye igu qaaliya oo halka gadaaleeta fadhiyo magaciisana la yiraahdo Muxyidiin Axmed Roble inta kadib waxaan jeclahay in sanadda aan ku soo dhaweeyo qaybo kamid ah heesihii la qaaday iyo gabayo kaleeto oo badan baan ugu aan hayo mid kamid ah gabayadaada bal noo soo qabo aad ugu talagashay soo dhaweynta sanadka cusub أهلي بلا هيا ولا دمعوت معد الله بتيدو قبل كي دردارنه ديوان كمد كواريو لغو دووبايو حكمة ذهب ديلي هبون ديرتا اندوبو إذن كورا دريالو ديرون يالا ديل قافن برقو درجة ليه دلو داعات وهذا مسكح دور عقل الدين ليا لقو دنقارايا داوشية ترتيبية تبال لقو دباشاي كبير كيس دول دول كوال لقو دنحاونه دول قاد باورونا هدنا كي ودو قرأ فداد بعد يا هول يرود بإسلام هاي استوقاشي إيا دوبنيا لقو دردور تاي تنتقود أداعها دوقيل لقو دردار مايا danta guud adeecaha dawgii lagu dardaarmaayo ballankii axdiga duuba oo dacay ku sii giija isku dura istaadihiyo oo dabacsanaan yeesha niyadii qalbiga dooja oo daacadiisu raaca kii nii daciifaba dallaca oo darajo gaarsiiya dar ilaah u saaxiiba oo diinta isku sheega استريالا دودا كتاga daayna bidkiinba beentiyo dulmiga dhaafa waa lagu dambaabaayay xanta iyo daniga daaya waa lagu daciifaayay dunuubtiyo ka taga diray dabin la qoolaayo dibin daabiyadana daaya iyo isu daneen gaara dadkay gowdanteena ka weyn dirir colaadeed isku duuma dibadaha ka taga dib walaalooba wixii daban dahsoona dalbalhayaan la dabayaacin waalidkiiyo duqowdiyo dabara kuwa danlaydaaba ducaadana adeeca xaqaynoo daliilsheene diriskiyo xigaalaha wanaag ugu digtoonaada kuwii aan isdilin istagaalino dayrisu ahaado in uu daa'in idinka dhiga dalbaya ducada aamiin dhahaan دروستي علمك قاطع وجاهل دبر قوي دكشة صلاتي دعوة دور له هذا دكسيه كدير سد سماه دالي له هذا صونك يسكت دبر دقودو يا بدن ديب صدقة كدار داينو خير سوق دقة طريقة سوق يارا ولا قد وراي عفسية القاضية تجنان دوني كسي جوك آخرها دم بيسة دوس هايوسي قاطع maalmaweeye dunida iyo mar baa laga dureeraayo wax daaqda wax dalag lu soo daara badan taagto dahab dollar diinaar adoo dacayda taagaayo mar bay ruux dukaadigaasa lagu dandaanshaay qabrigii ku duugaan la oran meydka dabadiya daartii rumaada tagto waadiga dagaya in aad naarta ku dambaysay yaan kaaga digayaay jahannama dawkeedan walaalkaaga digayaay carundaata diirkoo gubtaan kaaga digayaay cidla duura waraabi masbaan kaaga digayaay inaad daakhil ku ahaato yaan kaaga digayaay suubanaha dawgiisii maro yaan la daran doorin سفر دولا يا نهي دمان سيدا دبيشي عفس إيا دلقات إيا دقنان دوري كسي جوغا آخرات دنبيسي تضو صاحي وسي قاتل قبل جين تاسبان كسو قابين يا مركلة وايد السلام يا مهسندين
haddii aan uga gudubno soo dhaweyntii amaba gabagii ugu talagalay abwaan maxamed cilmi dhicisow haatan aan u leexdo dhanka fanaaniinta martida igu barnaamijka waliba dhanka hablaad aan ku leexdo aan soo qabto qaaliladan haddii aan ku weydiiyo su'aal magaaladeed ugu jeceshahay inaad mustaqbalkaaga ku dhamaysato oo yacni noloshaada ku soo gabagabayso aniga waxaan u jeclahay inaan ku noolaado dhanka Afrika hadii la dhaho magaalada Bombaaso oo anigu ka imaaday dhanka kale wadamada kalena Dubai dabcan waxaa tahay fanaanad Soomaaliyeed maxaad ku diiday inaad ku noolaato Muqdisho Kismaayo Boosaaso Hargeysa ilaa Djibouti يعني وحواي دنك مركل ودنكي كما شكل مقطع دنك كلام بكالله دنك كله هدان كهذا واحد شعله إلى كنا ولا ده حمر عدي حافظ إكس بياره وان قرتي هستد نقص وجنانو للحيد وحن كسي سقينا قبل برنامجك إن هست ددوينو دورتان وشعله لاي هنجو waan gartay haatan waxaan ku soo dhaweynaynaa heestaas ay doorteen daawadayaasha ama marti sharafta nagala soo qabgashay barnaamijka waxaan ku leenahay ballan fest inuu halis yaa jacay anta qiya ilkubado inuu hadalta ma yahay anoo hiiga gali
haddii aan ku soo gunaanoodo abwaanka ambaba hogaamiyaha kooxda Hilaac waxaan weydiinayaa su'aasha ah kooxdiina Hilaac maxay dibudhiska dalka Soomaaliya ugu tala gashay maxaase qorsheynaysaan inaad dibudhiska dalka Soomaaliya ka qayb qaadataan bismillaahi raxmaani raxiim mar labaad si qurux badan baan idin salaamayaa dhammaantiin daawadayaasha iyo asxaabta barnaamijka ka soo qayb gashay waan ku faraxsanahay inaan hadda cabaar joognay oo si fiican aan u baashaalnay waxaan noo qorshaysan annaga ka Hilaac ahaan kooxdan gudoomiyaha waaye walaalaha iyo dhalinyarada ay fanaaniinta inaan dib u dhiska dalka kaga qayb qaadano heeso wadaniyo hadda diyaarsan inaan sameeyno kadibna aanu qabanno showyo aan ku qaban doono East Africa sida Kenya Mombasa tagi dooniyo Nairobi Kampala inaan gaarno waa macquul hadday macquul noo tahay waxaan tagi doonaa ismaamulka Soomaalida iyo Itoobiya kuwaasoo fiiga aan ka soo ururina aan ugu deeqi doono dib u dhiska dalka Soomaaliya aan ahayn mid aan anagu qabsanayna ee uu yahay showyo wadani aan qaban doonaa abaan aan ka dhex galo ma ku qorshaysan tahay inaad gaadhaan caasimadda dalka Soomaaliya haatan aad moodo inay amni tahay ama bal isku haleyn karo halkaas inaad ku qabataan showyo oo aad dadka ka dhaadhicsan inaad yacnihi ku soo noqdaan wadanka gudihiisa uu yahay nabad waan tagi doonaa maxamar baan tagaynaa Hargeysa Garowe Gaalkacyo Kismaayo Baydhabo Xudur dhammaan inaan tagnaa rabnaa ilaa Gado annagoo weliba dadka showyo qabana baraarujina daawadayaal intaas waxay nooga eeg barnaamijkii gaarka ahaa ee ku soo dhaweynaynay sanadka cusub isla markaana ku macsalaameynay sanadkii tagay 2013 barnaamijka waxa idin soo saaray anigu Cabdixasiis Ibraahim Cali Dheera barnaamijku waxa uu idinkaga imaanaya xarunta TV-ga ku leeyahay magaalada Nairobi dhanka kaamirada iyo waliba farsamada waxa iga saaciday saaxiibkii Cabdifataax Maxamed Cilmi tan iyo kulanti dambe waxa idin leenahay sanad wanaagsan meel walba aad ku sugantiin sanadkiisa ilaahay ha nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh